aniga khatar galay naftaada. waxaan u socday baydhabo ciidiid markuu salbalaar samaystay ahayd 1996 ayaa waxaa ii yimid nin sarwaal dabagaaba qaba oo dheer oo Soomaali ah. wuxuu yidhi waxaa la yidhaahdaa Cabdi Bile, waa isbarannay oo Maraykanka ka imid yiri. waxaan u imid inaan halkan ku ordo magaca Soomaaliya. kutubtii Soomaaliya laga akhrisan jiray Masar lagu daabici jiray intooda badan. marka xaashi guduuday ahaayeen kitaabaday. kutubta luqadda, kutubta fiqiga iyo xataa tafsiirka. culimmadii Soomaaliya waxay bilaabeen inay dhahaan xaashi cad kitaabkii ku daabacan bidca waay. waa bidco. yani waxay u barteen kitaabadan xaashi guduudka. wuxuuna waa farsamo oo la xiriirta waraaqaha iyo qiimahooda iyo madbacadda. aad iyo aad in culimmada Soomaaliya ay fiican tahay in dalkan la keeno oo Azhartu ay tababar siido oo tayaaraad fikriya mucaasira iyo tour study waxaan afka Ingiriiska lagu yiraahdo in ay booqasho lagu geeyo xarumaha islaamka taariikhiga ah sida Masjid Imaam Shaafici iyo Masjid Azhar iyo xadaara islaamiga baxnimada islaamka iyo goobaha loo asteeyay in culimada la geeyo ay arkaan muxaadarooyin thaqaafad sare leh la siiyo. tarawalkii maqaayadii qadada anoo u sii socda wuxuu igu yiri taliye maxaa dhacay wuxuu jiraa markaasaan yiri miyaadan arkaynin khiyaanada nimanku sameeyeen. aniga khatar galay naftaada. waxaan u socday baydhabo ciidiid markuu salbalaar samaystay ahayd 1996 marka baydhabaan aaday gaari iyo 4 wiil oo waardiya iyo niman odayaal oo iga odayeeya. haddaan ciidiid u socdo baydhabo markuu qabsaday generaalka. ninka saqa ugu socotaa baydhabo saxafadeed. aad iyo aad weli cidna uguma tegin meesha. marka waxaan rabaa inaan ka soo warramo xaaladda meeshaas. generaalkana soo wareystay. aad iyo aad markaas madaxweynuhu sheegtaa dowladdii salbalaar waan tegey. marka leego markaan marayno waxaan aragnay geel dhalay oo waddadii gooyey. marka wiilashii waardiyaha waxaan ku iri joojiyey gaariga. darawalkii waxay dhaheen way iga yaqaaneen carrada ani nin qurba jooga ahaayo waxba kama aqaan waddanka. aad iyo aad geelaan dhalay iyo laamiga waxaan leeyahay ukaasi gaariga marsiina ilaa ay ka leexiyaan dhan u baxan. ayagu marka way dhibsanayeen. aad iyo aad marka intaan ka degay hadiiba aan gaarigii iridiisii hore iyo geeliyaan bilaabay ubadkii inaan sawiro. aadan xiiseynaa dhulkuna cagaar waaye leego biyahana maaragtay geelu ka cabaa. marka dhinacyadii ka soo kaxkaxaynayaan laamigii isugu keenayaan meel la maraba ma leh gaariga. aniga dhexdaan taaganahay sawir aan ku bilbilaabay meel kasta niman dabliya nooga soo dhex baxay. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan ku sugannahay studio Sultan waxaana marti inoo marti aad u culus saxafi muqdaram oo saxaafadda ku soo bilaabay yaraantiisii daraasadiisii ilaa iyo heerka maantay. hadalka inta badan waxaa iska leh Yuusuf Xasan Macalin. asaga ayaanan mikrofoonka sii doonaa waxaanan inta badan daarnaa doontaa taariikhdiisii noloshiisii iyo saxaafadda. kusoo dhawaaw يوسف حسن معلن استوديو سلطان قاهرة مصر أيام كوسو دوينينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا واد ما تسنتين بهذا استوديو سلطان مقالة القاهرة. آد أيام إذن كوم هاد علينا يا مرتي كلينتين. يوسف مصر كوسو دوين مينو ما أهان مركي يجوه الرئيسي واحد هاي أرضي وحكبرت دالك عن مصر. waxaan rabnaa su'aalaheena inay daarnaadaan noloshaadii waxbarasho ilaa iyo heerkaagii saxaafadda. waxaan u kala qaybi doonaa su'aalaha qaybo waxaana ku hormari doonaa inta badan kuwa la xiriira noloshaadii. haddii aan ka bilaabno xaggii ku dhashay Ustaad Yuusuf Xasan?
wallaahi aniga sida ii qoran magaalada Dhuusamareeb deegaankaasaan ku dhashay, laakiin dhinaca maaragtay Galgaduud oo baadiyaha ah ayaan ku dhashay, xagga Galgaduud iyo Hiiraan soo xigta sida la ii sheegay. qoyskaygu wuxuu ahaa qoys reer miyi ah, hooyadii aabbahay xoolo dhaqatay ahaayeen. kadibna dugsi qur-aanka waxaa layga geeyey magaalada Matabaan oo halkaasaan degnay. awowgay macallin daahir oo dugsi qur-aana ku hayay, dugsigaasaa la geeyey. kadibna waxaan u guurnay magaalada Balanballe, halkaasaan ayadana ka galay dugsi qur-aan. macallin dhanka Qalaaf ka yimid ayaa qur-aanka noo dhigi jiray. dabadeedna waa layga soo waday halkaas anigoo qiyaastii 9 sano jira. waxaa la keenay magaalada Muqdisho oo adeeryaalkii iyo eedooyinkii ayaa la ii keenay. marka dugsiga qur-aanka ee Sheekh Cali Suufi ku yaalay masjidka Sheekh Cali Suufi ayaan galay qur-aan ahaan. marka awal ilaa jus camma xagga ku soo dhigtay, aad iyo aad halkaanan qur-aankii ku dhigtay tajwiidka. macallin Maxamed in la yiraahdo dhigi jiray aad u fiican, Qoryooli markii u dambeysay uu joogay oo xamar oo ka qaxay. aniga sheekha weyne qaariga Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi ayuu macallin noo wada ahaa. halkaasaan dugsiga qur-aanka isla dhiganaynay. iskoolka Dhagaxtuur xaafadda Siigaale ku yaala ayaan birmadii ku bilaabay, iyo kadibna Kaasba Ballaare aan dhigan jiray. 8ka waxaan ka baxay Maxamuud Xarbi, kadibna ardadii af Soomaaliga lagu bilaabaan ka mid ahaa aniga. dabadeedna form 1kii iyo 2gii iyo 3gii iskoolka Carabtaan aaday. halkaas iskooladii masaaridu lahaayeen Jamaal Cabdinaasir ayaan, maadaama marka aan carabiga ku fiicnaa oo iskoolka ardada ugu fiican carabiga ayaan ahaa. sababtan waxay ahayd masaajidadan ku tixnaa oo culimmadii oo kutubta akhrin jirtay, xagga kutubta fiqiga, tafsiirka, axaadiista iyo maaragtay luuqadaba ayaan ardadii aadi jirtaan ka mid ahaa, oo meelo kale ma aadi jirin yaraantii. marka wax badanaan ka bartay carabiga, saasaan ku jeclaaday. dabadeedna adiga halkan Qaahiraan 81kii imid. halkaas haddii aan kaa dhex galo Yuusuf, imaanshahagii Masar ma waxaad ku timid deeq waxbarasho mase waxaad ku timid si shakhsiyan ah? maya, ani shakhsiyan ku imid. anaa go'aansaday. hooyaday iyo eedaday Allah u naxariisto labadaba ayaa gacan igu siiyey aad iyo aad inaan waxbarashada ku dhammaystaan rabay, waxna ka barto. marka waxbaan inta urursaday. raqiisay ahayd nolosha Masar. aad iyo aad Soomaaliya ku dheeday tigidhku qaali ma ahayn, fiisana looma baahnayn. nin aan qaraabo ahayn General Suxaayo Abdulqaadir Cali Mire Allah u naxariisto ayaa aniga iyo dhowr wiil oo kale baasaboor noo soo qaaday. lama ogolayn da'deena baasaboor in la siiyo inay dalka ka baxaan waagii kacaanka. marka Masarna fiisa la'aan ahayd markaas. lacag $200 markaas joogtaan urursaday, tigidhkii iyo lacagtii aan isla helay. cidna kama aqaan, waa soo dhoofay. Masar imaaday. nasiib wanaag waxaan airboortka iska helnay. dugsigii hoose wiil aan isla dhigan jirnay oo qoyskooda halkan degan yihiin. waxaad ku aragteen airboortka hooyadiisa Sacuudiga ka imaanaysa, aabihiisa Sacuudiga ka shaqaynayay ayuu maaragtay soo wadayey. markii aan kulanay
magaaladaas ka taqaan iyo wixii uu weydiiyey qofna kama aqaanayo wiilkii wuxuu yidhi ilo annagaan raacaysaa xaafadeen aad iyo rakaas ballaarana waa isla ahayn markii hore iskuulkana waa isla ahayn aad la dhigi jirtay maxamed rashaal dhijir hadda maraykanka iyo kanada ku iyo nool ayuu degan yahay markii iigu dambeysay qoys aada u wanaagsan ahaayeen kadib wax yaraan joogay 81kii ahayd maxamed anwar saadaad ayaa madaxweyne ka ahaa halkan marka fiisa la-aana lagu soo gelayo marka hadda gineega oo kale lacagan sariftay $100 oo waagaas meeqay u dhigmaysa suuqa madow markaas $100 70 gine ayuu ahaa miidaan cataba meesha la yiraahdo aado ayaan kasoo sariftay marka noloshu aaday u jabneed haddii aan wax kaasii weydiiyo adoo kusii soconaysid sidee markaa ku bilowday processkii ahaa in aad gasho jaamacadda Azhar sideese kugu suurta gashay waxbarashadayda halkaanaan ka dhammaystay markii aan ka dhammaystay qaahiro imaanshahagii Masar kadib sidee ku bilowday walaahi markii aan joogay waan xoogaa nolosha igu adkaatay waan ka tegi Masar 82 waxaan aaday adeerkay allah u raxmade oo sheekhii doctorka ahaa ee sheekh maxamed rashaad ayaa yiri oo sacuudiga joogay ka soo tag imaaw Sacuudiga Jabuuti tag markii Jabuuti baan aaday cidna kama aqaan dad kalaan ka helay meeshaas adii fiisa sacuudiga ka qaatay kadib waxaan tegay sacuudiga adeeraan u tegay adeeraan la joogay sanad waxbarashadaan rabay inaan xagga kasii wato ma ii hagaagin kadib adeer halkaan u ii soo diray Masar dib ugu soo laabay haa halkaasaan kasii watay marka ilaa jaamacadda Azhar aan galay markii dambe kulliyadda luqa alcarabiya qaybta saxaafadda ayaad gashay oo markaas kulliyaddaas ka tirsaneed luqa alcarabiya ayaan galay adiga waxaan ka baxay sanadkii 1987 ayaad qalin jabisay haa kadibna Yurub aan aaday Itaaliya aan muddo joogay magangelyo siyaasadeedaan weydiistay way isiiyeen dabadeedna dhalinyaraan ahayn Canada ayaa la dalbaday macnaha dhalinyaradu jecleed intaanan u gelin noloshaadii qurbaha Ustaad Yuusuf waxaan rabnaa inaan ogaano intaad ka baranaysa dalkani Masar waxbarashada aad ku jirtay waxbarashada akadeemiga ahayd maxaad taariikh ahaan ka xasuusataa haddii aad noo soo koobto Soomaaliga xilligaas ku nooleed waddanka sidoo ahaa waxbarashada sidee ahayd nidaamkaas ayaan jeclaa xataa waxay u maqaalay inaad ka mid ahayd raabitatul itixaad ad-dalaba as-Soomaaliyiin fi Masar annaga ardada laba qaybood kala ahaayeen ardo oo deeq waxbarasho lagu keenay oo dibadaha laga keenay Azhar oo kale madiinatul bucuutha la dejin jiray ardada minxada lagu keenay deeqda waxbarasho ardada kale annaga ardo oo private ahaan ku dhigta ayaan ahayn banaankaan deganayn annaga isla deganayn tusaale ahaan aniga iyo ustaad xildhibaanka oo cabdulqaadir cusable madaxweynaha u tartamaya iyo maaragtay nin la yidhaha cabdulaahi xuseen kaahiye oo ragga hormuud iyo asaasay ka mid ahaa ardada oo iyaga qoysaskooda ay soo direen banaankaan deganayn annaga isla deganayn laakiin duruusta Azhar lacag ma ahayn jaamacadda lacag la-aanay ahayd laakiin wax kalena may siin jirin kadib deeq waxbarashaan helnay oo 60 geni ayaana lakugu bilaabo markii ugu dambeysay adiga 160 meelahaas geni oo minxad u qaadanayseen lacag haa ay noo gaartay markii ugu dambeysay marka waa badnayn dhalinyaro badan kuwa deeq waxbarasho kuwa oo wadamada carabta ka yimid kuwa oo si gaara u yimid intaba waa lahayn aadna looma badnayn jaamacadaha la dhiganayay jaamacatul qaahira Azhar ayaa loo badnaa aliskandariya almanuufiya cayn shams
jaamacadaas ahayn jaamacado baraybada ma jirin markaas sida hadda masar ay baraybad uga jiraan ma ka jirin jaaliyadda ma badnayn dad yar oo khaliijka ka shaqeeya ayaa qoysaskooda keeni jiray dalka masar dabadeedna dadkii xilligeenaas jaamacadaha ka baxay inta badan yurub ay aadeen dalka umayna noqonin marka laakiin meelihii ay tageen dad maadaama dhaqankii iyo diintii iyo carabiga ay yaqaanaan waxay qayb weyn ka qaateen soomaalidii dalalkaas tagtay ayay runtii waxay u noqdeen hormuud oo waxbara afka carabiga diinta dhaqanka masaajidadii maraykanka iyo canada iyo yurub oo dhan waa aaday u joogeen runtii marka waxyaabihii halkan intaan joogay xasuusta lahaa waxaa ka mid a naadiga ayaan maaragtay maamulkii naadiga ardada ayaan anugu mas-uuliyiintii aan kamid ahaa sanad ka mida adiga 85 meelahaas ayaan maamulka ka mid ahaa weliba qaybta waxaan qaabilsanaa waxbarashada iyo dhaqanka iyo thaqaafadda mushrif thaqaafi marka minax daraasiya iyo kulli oo naadiga u khaas ahaa annagaa bixin jirnay naadigaa maamuli jiray oo masar waxay la tacaamuli jirtay mu'asaso gooni ha naadigu waxaa la aasaasay 1952 الله رحمه محمود حربي هالجماجي حرية جيبوتي هالجمياش كمدها أي أساسي شنطة صوماليا أي كلنات ساسون أتاقنا 36 شارع شريف باشا شقة 7 آدي هذا وهيسا وان حسوستا آدي مركا وحيابها حسوستو حكمدا صدح دعضو إذا كواد anigoo xaafiiska jooga naadiga ayaa waxaa ii yimid nin sarwaal dabagaaba qaba oo dheer oo Soomaali ah marka wuxuu salaamay wuxuu yiri asiga naadiga asoo soconay lagu soo ha good kulli dad kala la socday kan wuxuu yiri waxaa la yiraahdaa Cabdi Bile waa isbaranay maraykanka ka imid waxaan u imid inaan halkan ku ordo magaca Soomaaliya qaahiro ku ordo orod tartanka orodada ka jiray marka magaca Soomaaliya ku orday asagoo saakin maraykan ka yimid marka wuxuu yiri waxaan rabaa inaan faatixada ii martaan in ilaahay igu guuleeyo runtii aad noo taabatay أنا شخصيا ولبا وأنا أمرني هاد وقرب استاقني وبحني مالا ودويدو كنتاكي أنك عشاني تاسوان حسوستا عبد بلا نك لبادو نقضي مركز هالكان مصر وحكو نقضي ترتنكي لابو كنقلي آدو فعنا كدبنا رومو تقي رومو وقاضي ريكورد عصب dhigay waliba orodka taariikhda galay waxa uu maqaalay 20 maalmood ilaa 20 ka warka bacdi inuu ka qayb galay tartankaas ka dhacay maalmaha ma xasuusta aniga laakiin waa dhaweyd isku dhawaayeen ha Cabdi Bile waa magaca Soomaaliya ha nin marka igama go'in xasuusta markasta xasuusta dadkii faatixada iyo mara in arintaas uu guulay dadkuna waa xilli dadku israbeen oo aad iyo loo isku furnaa ha nin aad Soomaali oo wanaagsan oo حشمت بدن لكن قفكي أو سروالك دوقابك وتي أركا ما وقت وحكلوا أركا آدي لكن نحو إذا بدن عجائب له والدنيا يدحم بحسنا آدي كدي بدي بسكارتين عبد بالعب ما يعني ما أركن مرضا بس ما أركن لكن والله سعد حالة دي سوى الله سعودي العدد اللي بعد كدي تنلواد وحيهاد نادي حنوي ميت nin la yiraahdo Dr. Ibrahim Cadow Allah رحمه wasiirkii waxbarashada xilligii dawladii
sheekh shariif noqday. Isagana markaas ayuu PhD da ka qaatay jaamacad Mareykanka ku taala American University oo Mareykanka ku taala Washington. marka uu noo yimid lecture ayaan ku casuumnay marka isaga naadiga ana casuumay marka muxaadarada waxbarashada ku saabsan ayuu noo jeediyey. tacliin sare ku takhasusay isagana aad buu nooga warramay. nin cajaa'ib loo ahaa idin badan oo ahlu diina oo Allah u raxmado. marka saameyn uu nagu yeeshay lecturekiisa. markaas kadib Mareykanka ku noqday. Mareykan isku aragnay aniga waa dambe oo aqalka cad iyo wasaaradda difaaca iyo asagaa igu soo wareejiyey oo gaari igu waday deegaankaas oo dhan Allah u raxmado. kadibna de xilligii maxkamadaha iyo markuu wasiirka arrimaha dibadda uu ahaa maxkamadaha wadaxaajoodiyadii ayaan dabcan ka warramayay oo markaas igu dambeysay Allah u raxmado. midda saddexaad waxay ahayd oo intaan ururka ardada aan mas-uuliyiinta ka ayn dhacday. Soomaaliya waxaa ka jiray buuq badan oo culummadan Sacuudiga ka yimaada iyo culummada oo taqliidiga ahaa oo horey u jiri jiray oo qoladan wahaabiye waa ay dhihi jireen, kuwaana suufiye ayay dhihi jireen. marka dhibaata ka jirtay. ani markii halkaan imid ayaa waxaa dhacday dabcan maadaama aan madbacadaha iyo saxaafadda iyo waxaas aan qaranayay waxaan arkay ciddii xasuusatana ay xasuusan karto kutubtii Soomaaliya laga akhrisan jiray Masar lagu daabici jiray intooda badan. marka xaashi guduuday ahaayeen kitaabaday kutubta luqadda, kutubta fiqiga iyo xataa tafsiirka oo Jalaaleynka tafsiirka la dhihi jiray. marka xaashi guduuday ahaayeen. waxaana lagu daabici jiray madbacad Azharta ku taala agteeda oo la yiraahdo madbacatu Mustafa al-Halabi wa awlaadu xaashi guduuda. marka culummadii Soomaaliya waxay bilaabeen inay dhahaan xaashi cad kitaabka ku daabacan bidca waa bidco yani waxay u barteen kitaabadan ku xaashi guduudka wuxuuna waa farsamo oo la xiriirta waraaqaha iyo qiimahooda iyo madbacadda. aniga wixii markaan arkay waa yaabanahay. culummadii maxay u dhahayeen waxbaa ii kordhay oo ii ziyaaday. waxaan waraaqaha oo kala qaalisan inay yihiin lagu daabacay. marka nin waxaa arkay oo reer Muqdisho reer Banaadiri oo kutubta ka ganacsada oo awowyaalka ka dhaxlayba ka ganacsiga kutubta. madbacatu al-Baabi al-Halabi Mustafa al-Baabi al-Halabi awlaadu ay u daabacdaba awowyaalkiisuuna ka dhaxlay. ayaga kitaabada geeyay dalka dhanba ayagaa geeyay baal guduudka ninkii isbaran si oo kadis meesha Xuseen iyo Azharta isku baranay uu iga sheekeeyey. adi madbacadii tagi soo arkay wixii oo dhan kuwa isla kutubtaana waraaqa cadcada iyo waraaqahan guduudan. ilaa waraaqaha guduudan waa kuwa raqiiska oo la daadiyo quality-goodu yar oo hooseeya. marka ninkan maadaama Soomaalidu ayna wax qaaliga gadan karin kuwaana loogu daabacaa kutubta ay rabaan. saasaan dalka lagu geeyaa. Soomaaliya saasay ula qabsadeen wax kale ma marka aniga fikrada igu soo dhacday marka oo in culummada Soomaaliya ay fiican tahay in dalkan la keeno oo Azhartu ay tababar siido oo tayaaraad fikriye mucaasira iyo tour study waxaan afka Ingiriiska lagu yiraahdo in ay booqasho lagu geeyo xarumaha islaamka taariikhiga sida masjid Imaam Shaafici iyo masjid Azhar iyo xadaara islaamiya baxnimada islaamka iyo goobaha loo asteeyay in culummada la geeyo ay arkaan muxaadarooyin thaqaafad sare leh la siiyo inay fiican tahay. Sheekh Azhar aan u tagnay
wuu ogolaaday fikraddu marka waxay ahayd xilligaas sidaa sheekul asar ka ah marka sheekh jaadulxaq cali jaadulxaq allah u naxariisto allah yarxamo marka way aqbaleen codsigeennii 30 sheekh oo gobollada soomaaliya laga soo ururiyey oo wasiir ku-xigeenkii arrimaha diinta iyo awqaafta sheekh maxamed guuleed allah u naxariistee oo sheekh caalim ahaa isagana ayaa hogaaminayay oo soo raacay aad iyo aad waxaan xasuustaa macalin maxamuud sheekh macalin maxamuudkan ahlu sunna ayaa la socday wafdigaas haa gacanyaraha sheekhu ahaa sheekh maxamed guuleed anigana sheekh maxamed guuleed tafsiirkiisa oo masjidka siigaale ka akhrin jiray ayaan ku taxnaa marka waa sheekhaygii oo aad aan u xushmaynayay sheekh culmo badanaa lahaa sheekh maxamed macalin allah u naxariisto sheekhayga ahaa iyo sheekh ibraahim suule allah u naxariisto iyo sheekh muriidi nin la yiraa oo inuu hadda nool yahay in kale ma kala aqaan mombaaso markii u dambeysay joogay allah hadduu nool yahana allah dheereeya haddii uu dhintana allah u naxariisto marka culmo badanaa aan lahaa laakiin sheekhana wuu ka mid ahaa dadkii aan wax ka soo akhristay marka wafdiga isaga hogaaminayay culimmadii markii la keenay annaga dhallinyarada naadiga mas-uuliyiinta ka ah dowlad mucaaridan ku ahayn dowladdii waaga sheekh maxamed aad iyo aad mucaaridaan ahayn dhallinyaro ah oo dagaaladii waqooyigiina wayba bilowdeen markaas SNM jabhaddii horeyna SDF u jirtay marka safaaraddu laakiin niman safiiraha wanaagsan ayaa joogay wax weyn nagama soo qaadi jirin oo nama dhibi jirin run ahaantii aad bay gacan noo sii jireen wixii aan uga baahano xaqiiqatan nin la yidhaa lagu naanays jiray badag oo safiir ahaa allah yarxamo xamar oo ku dhintay lagu dilay aan maqlay iyo xilligaas ka ah safiir haa iyo cabdiraxmaan guulwade safiirka generaalka jenaraal cabdiraxmaan kabaweyne maye cabdiraxmaan faarax kabaweyne waa naga horreeyey laakiin qoyskiisaa deganaayo oo wax ku bartay cabdiraxmaan waa safaaradda xataa isagaa gaday cabdiraxmaan guulwade loo yaqaano oo generaalka ahaa waa nin weyn oo asna caalim ah runtii madaxweynahana isku dhowaayeen marka haddii usoo laabana seminaarkii culummada yuusuf seminaarkii si wanaagsan u dhacay marka sheekh maxamed dhacdada oo saddexaadan kuu sheegay waatan waan casuumay sheekh maxamed mawliida la joogo xilligaas haa aad iyo aad marka sheekh waxaan kaa rabnaa inaad muxaadaro noo jeediso mawlidka ku saabsan oo lagu jeeday xarunta naadiga ardayda xarunta naadiga lagu qabanayo wuu aqbalay sheekhii sheekh maxamed guuleed safaaradda iyo waxay ku dhaheen nimanka mucaarid waayo way ku dhibayaan iska ilaali wuu diiday waa tegaahu yiri aad iyo aad ilaahu raxmado anaa casuumay wuu naga yeelay waa yimid marka xafladdii markaan furaynay anaa xiriirinayay ayaa waxaan idhi sheekhii oo wasiirkii sheekhii ayaa noo yimid marka mawlidka nooga warramay sheekh maaragtay macalin maxamuudna waa la socdaa isaga keliya la socdaa 30kii kale qofna kama soo raacin marka qur-aankiiaan ku furfurannay arday in oday oo jaamacadda dhiganayo saaxiibka aan isla deganayn qur-aan ku qornaa marka suuratulmunaafiquun ayuu ku bilaabay idaa jaa'aka almunaafiquuna qaala anigii aadaan u naxay sheekhii aan casuumay oo haddana wasiir ku-xigeenkii ah oo sheekhaygii ah iyo marka nimankan way ku kacsan yihiin dhalinyarada qaar badan oo ka mid ah sheekhii ma xanaaqin runtii wuxuu yidhi qur-aanku waa badan yahay maxaad suuratulmunaafiquun ugu doorateen inay iftaax noqoto haa marka waxaa sheekh qur-aankii ka mid tahay raalli ah oo haddii
farsamo maxamed dhacday ها wuu naga aqbalay wuu qoslay muxaadaro wanaagsan u jeediyey su-aalo adagaa la weydiiyey oo suufi waaye asaga suufinimay kula dirirayay aad iyo aad dhalinyarada qaar ka mid ah aniga sheekhaygii u ahaa anigu kama soo siyaasad ahaan aan kasoo horjeedna laakiin mabda ahaan kama soo horjeedin macalin maxamuud aad buu u difaacayay sheekha oo hadal adkaa aad iyo aad isagu markaasba adkarna wuu ahaa naftiisa aad iyo aad marka dhacdadaasna waa xasuustaa way nagu dhacday calaa kulli xaal waxaan rabaa inaan muujiyo soomaalidu ma badnayn laakiin way isjeclaayeen ardada wax dhiba kama dhex jirin safaaraddii ayaguna way wada shaqaynayeen jaaliyaddu way wada shaqaynayeen macaaridna waa joogeen oo aan awood badan ku lahayn mid kale oo aan la kulmo waxay ahayd ninaa yimid oo korneyl ka ahaa ciidamadii soomaaliya oo soo goostay xilligii dowladda intaas aan naadiga joogay marka maadaama aan saxaafadda dhiganayay wuxuu rabay inaan ka caawiyo maqaal uu doonayay inuu faafiyo marka anigana xiriir waxaan la lahaa oo tababaro ku qaadanayay jariidat alakhbaar alyowm iyo wakaalat alanbaa almisriya mina iyo maaragtay jamhuuriya iyo maaragtay aakhir saaca iyo oktoobar kuwaas aan ku qaadan jirtay aan ku qaadanayni tababaro xataa ahraam marka uu ii yimid wuxuu yidhi nin qisaan rabaa inaan soo daabaco iga caawi qisadii uu ii sheegay qisada ayaa waxay ahayd qiso cajaa'ib ah wuxuu igu yidhi aniga taangiistan ahaa korneyla ahaa weligii intaa xasuusta uu yidhi shaqadeyda xirfadeyda askar waa aad iyo aad waa la iga saaray ciidamada waxaa la ii dhiibay mashruuc oo bariiska ee magaalada jowhar isaguna wuxuu ahaa askar sarkaal u ahaa sare gaashaan la saraa reer waqooyi ahaa allaha u raxmado hadduu dhintay maxamed cumar nuur aa la dhihi jiray aad iyo aad marka wuxuu yidhi bariiskii mashruucii ayaa isagoo sarkaal ah ayaa waxaa loo ciidankaa laga saaray waxaa loo bedelay inuu mashruucii madax looga dhigay ee bariiska jowhar aad iyo marka wuxuu yidhi maalin la arko waxaan daawadaa beeraha bariiskana waa cagaar qurux badan wuu daawadaa waa joogaa maalin dambe xamar u aadi marka waa ku kaliis miyaa daawashaas mase waxaa jiro may waa la wadaa waxaa la socda raggii khubarada ahaa oo kuliyadda beeraha ka baxayo khubaro badana la shaqeeya laakiin madaxu ka yahay wuxuu yidhi xamar baan ku soo daahay waa imid meeshii ebera aan ku laabtay oo beerihii qallalan wax cagaara aan lagu arag aan ku laabtay darawala gaari igu waduu yidhi waan aniga aadaan xumaaday waxaa qalbigiga galow yidhi mu'aamarad in la igu sameeyey oo nimankan khiyaaneen oo bariiskii eber laga dhigay oo khatar aan ku suganahay aad iyo aad marka darawalkii aan iriyo nabad saldhigga nagee booliska ee jowhar saldhiggii aan taguu yidhi askaraan soo watay nimankii ila shaqaynayo oo beeraha ku takhas oo beeraha yaqaanay oo jaamacadda beeraha ay ka soo baxay khubaradii oo xirxir aan iriyo yidhi ii soo xirxira kulli xabsigaan dhiguu yidhi stationka ii haaya jowhar qadaan aaduu yidhi darawalkii maqaayaddii qadada anoo u sii socda wuxuu igu yidhi taliya maxaa dhacay si wax u jiraan haye markaasaan iriyu yidhi miyaadan arkaynin khiyaanada nimanku sameeyeen maxay sameeyeen aaw bariiskii iyo cagaarkii sida ay ka dhigeen soo uma jeedid imishimaya nimankan markaasuu yidhi taliye bariiskii waa go'ay waa bislaaday waa la gooyey marka waa saas markii la gooyena yaa bariiskii waa la gooyey
bariis ahaan uu u yaalaa wax dhiba ma dhicin ah ma iga hubtaa waa ka huba haa waa kaa hubaa stationki nagu celi saldhigaan ku noqdo yiri nimankii ayaan iriyo keena ii soo daayaan iriyo askartii waa la isiiyey waan soo waday gaarigii kora maqaayadan geeyey adiga waxaan cudurdaara siiyey waxaan u sheegay sababtaan u xiray cagaarkii inuu waaye haa haye way yaabeen yiri ayagiina markaas wuxuu yiri waxaan iriyo nimayow adinkuna ma qaldanidin anna ma qaldani ninkii isku kaarnaa keenay waa ninka positionkan aanan aqoonin i keenay ayaa dembiga leh iskale waa sax marka iga raali noqdo sidaas ayaan go-aan ku gaaroyay marka inaan soo goosto qisada saas u qoray marka qisadaas ahayd wuu daabacay qisada allah raxmado kadib ingiriiska uu galay markii ugu dambeysay hargeysaan ku arkay kadib waa dhintaa laygu yiri allah yarxamo isagoo taliyaha nabad sugidda somaliland ayuu mar noqday marka qisadaasna waan xasuustaa run ahaantii intaad masar joogtay haa laakiin nolosha raqiisay ahayd sarifkoo $260 meelahaas ku dhadhow $100 ayaa imaad ayaan ka tagtay haa $70 $70 iyadoo ahna waan imid waxaan rabaa inaan ku socono su'aalaheeni xagga saxaafadda ama waxaan u geli doonaa marxaladii ama warbaahinta gelitaankaadii saxaafadda goormay qortay qoraal ama maqaal saxaafadeed kugu horreeyay wallaahi intaan naadiga joognay halkan ardayga ka ahaa aad iyo aad ayaan qori jiray mukhtaar islaami magazine la yiraa jariidatu liwaa alislaami aan ku qorqori jiray arrimaha soomaaliya mararka qaar kaasaa iigu horreeyey waxaa kaloo ku xigay oo dhuhuur iclaami warbaahin aan kasoo muuqdo telefishinka qaranka masar sababtan waxay ahayd tartan ardayda dalalka carabtaa jiray ee aqoon guuda waxbarashada ah marka 5 ayaa dal kasta ka socday iyo hal fanaan marka annaga 5 ardayaan ahayn anaa guddoominayay dadkan ka xasuusto daahir maxamuud geela ku jiray oo markaas sanadkii koowaad jaamacadda inuu ahaan u malaynayo ana waa dhammayn rabay macnaha sanad saddexaad aan ahaa markaas iyo 3 arday oo kale marka barnaamij la yiraahdo sibaaq saxaab tartanka daruuraha oo telefishinka masar ka baxa madxad shalabi nin la yiraahdo ayaa daadihin jiray ما كان سبورتسكي وحاسب حتى سبورتسكي وري مدح أيوة مركز معلق رياضة هو أها مركز برنامج حساب بدن أها سيد خليفة فنان كلا ديه جري في السودان عنك الله ونحرست أيان نقدر سنة أنا القدرة عادية مركز السودان إمارات طلب بدن لا ترتني وانكهر مرني ما شاء الله مركز برنامج كتي في قال لقد دين جري ظهور كاسنا واجري مركز laakiin aniga jaceylka saxaafadda waxaas waxay ugu dhalatay anigoo xamar arday ka ah ayaa raadi muqdisho dadkii niman ka shaqayn jiray cabdullaahi sheekh xuseen hanti wadaag maxamed carab falax allah u naxariist teera allah u naxariist dad badan iyo fanaaniintii iyo ayaa xaafadeenna u badnaa oo marka biibtana waan ku lahayn meesha eedaday baa ku lahayd meesha imaan jireen xisaabta iyo waxbay maaragtay ciid faarax iyo dad badan halkaasaan maaragtay kala jaan qaada waa dhageysan jiray oo aadaan u xiisayn jiray maadaama waryaal badan aan yaraantii aan aqaano barnaamijyadana waan ku tixnaa marka halkaas aan kala jaan qaaday run ahaantii dhacdo aadan hilmaami karin oo aad inta mihnada saxaafadda ku jirtay kaa qabsatay ma jirtaa ha ahaatay bilowgii saxaafadda ama ha ahaatay intii aad ka mid ahaan ugu jirtay wallaahi badan yihiin laakiin waxyaaba badan oo murugo lahaan soo tabin jiray hal iyo laba hadaa ka xasuusto dad madfac ku dhacay
dad la laayay, dagaallo dhaceen, daadad iyo dhibaato, abaar, duruufo adag, hogaamiye kooxeedyo oo madfac iska soo rido xaafado ku dhacay oo dad badan maaragtay ay ku dhinteen. waxyaabahaas oo dhan aan u soo joogay. shirarkii intii aan ka dhex galo adoo raalli ah, waxaad ka soo shaqaysay idaacaddii BBC da qaybta afka carabiga iyo qaybta afka soomaaliga haddii aanan qaldanayn. waan ka shaqeeyey labadaba iyo qaybta tababaradaba saddexdaba waan ka shaqeeyey. aniga BBC carabi iyo soomaali isku maraan bilaabay hal waqti. 96 freelance aan ku bilaabay, wariye madax bannaan muqdisho anoo Canada ka imid London. maaragtay horta wargeysaan halkan ka soo saari jiray Qaahira la yiraahdo warsan markaan ardayga ahaa oo naadiga magaciisaan ku soo saari jirnay, anaa tifatiro ka ahaa. Canada markaan tegayna isla wargeyskii magazine ayaa u bedeshay, ayaan ka soo saaray cadadyo badan iyo publication oo maaragtay daaru nashr camal oo warsan publication aan sameeyey. BBC marka wargeyskaasaan soo saari jiray, waxaasay iga wareysteen, saasaan iskula jaan qaadnay BBC. laakiin carabiga ayaan la bilaabay shaqo ahaan runtii, freelancer ah. soomaaligana maxamed cabdulaahi nin la yiraaho wariyaha Soomaaliya, maxamed cabdulaahi rabaxa la yiraaho, nin aad khabiir u ahaa, journalista reer Kenya ah, Soomaali Kenya ayaa madax ka ahaa markaas BBC Soomaali. nin aad u qiimo badan ah runtii, ilaahay cumrigiisa u dheereeyo, uu nool yahay. cabdulaahi xaaji ayaa asna senior producer ka ahaa, nin xilligaas aad dadka u soo dhaweeyay ahaa, asna nin qiimo badan ah runtii. anaa nin iska yaran ahaa markaas, xaddi ahaan iigu soo dhawaa waxaan u malaynaa cabdisalaan hareeri iyo yuusuf garaad iyagu shaqaale rasmi ka ahaa meesha. marka anigu meeshaan kusoo booqday, wareysiye iyo waxaasaa laga qaaday, media kale ma jirin waagaas. marka saasaan ku bilaabay freelance. xamaraan tegey. dhacdada iigu xumeed murugada badneed waxay ahayd anigaa khatar galay naftaada. waxaan u socday Baydhabo, ciidiid markuu salbalaar samaystay ahayd 1996. marka Baydhabaan aaday, gaari iyo 4 wiil oo waardiya iyo niman odayaal oo iga odayeeya. haddaan ciidiid u socdo Baydhabo markuu qabsaday wey generaalka. ninkaas shaqo ugu socotaa Baydhabo saxaafadeed. aad iyo aad weli cidna uguma tegin meesha. marka waxaan rabaa inaan ka soo warramo xaaladda meeshaas, generaalkana soo wareysto. aad iyo aad markaas madaxweynuhu sheegtaa dowladdii salbalaar oo madax. waan tegey. marka leego markaan marayno waxaan aragnay geel dhalay oo waddadii gooyey. marka wiilashii waardiyaha waxaan ku iri joojiyey gaariga. darawalkii waxay dhaheen way iga yaqaaneen carrada, ani nin qurbo jooga ahaayo waxba kama aqaan waddanka. aad iyo aad geelaan dhalay iyo laamiga waxaan leeyahay ukaasha gaariga hamarsiina ilaa ay ka leexiyaan dhan u baxan. ayaga marka way dhibsanayeen. aad iyo aad marka intaan ka degay haddiiba aan gaarigii iridiisii hore iyo geeliyaan bilaabay ubadkii inaan sawiro. aadan u xiiseynaa, dhulkuna cagaar waaye, leego oo barwaaqisnaa, biyahana maaragtay geelu ka cabaa. aad iyo marka dhinacyadii kasoo kaxkaxaynayeen, laamigii isugu keenayeen. meel la maraba ma leh gaariga. aniga dhexdaan taaganahay, sawir aan ku bilbilaabay. meel kasta niman dabliya nooga soo dhex baxay. waa halku talagal ahba. qoryihii saas noogu wada qabteen, wiilashayna qoryihii ayagana ku qabteen. 11 nin oo hubaysan waa ayaga, annagana waa 4 qoryood. ilaahay amarkii oo nasiib badnayn, nin odaya ayaa wuxuu aqoonsaday odayga nala socda.
markaasuu soo orday kulle nin reer magaalo u ekaayo meesha oon dadkan abaabula aad iyo aad odagiiuu ku soo booday war joojiyay oo wiilashiina ku qayliyay oo la dhacay sidii ilaahay nagu badbaadiyey oo khatartaasaan galana haddii wiilasha midkood xabad ridi lahaa waa ahaa lahaydeen annaga dhan waa isku baabi'i lahayn meesha khatar taas ay u daran ciidiidaan u sheegnay markaan u tegey marka aad buu maaragtay wuxuu yidhi aada u nasiib badantihiin geela isbaaraa lagu dhigtaa buu yidhi waxay ahayd markaad in xabado kor u ridaan oo xoog ku martaan marka taas horta khatar bay ahayd waxyaabihii kale way fara badan yihiin lagama sheekeyn karo oon soo maray laakiin aniga waxaa iigu cajiib badneed markaan aan tegey Israa'iil iyo Falastiin iyo Qudus aad wariye caadi ku soo waramay 2001 ayaan tegey sanad guuradii 54 ayaan ka soo waramay ee asaaska State of Israel markii la asaasay dowladda Israa'iil ay xilliga u dabaaldegayeen marka la daran ka tegey oo laga diray Tel Aviv aan ka degay kadib Qudus waxa u soo warimaysay qaybta afka Carabeed mise Carabiga iyo Soomaaliga labadaba laakiin mainly Soomaaligan aad xoog saaray masjidka marka life waxaan ka soo tabiyay maaragtay gudihiisa masjid al-Aqsa ayaan warbixin ka soo diray oo BBC Soomaali ka baxaysay iyo Gaza sidoo kale magaalooyin Tel Aviv Haifa iyo deegaanadaas iyo sidii og yihiin oo dhan ayaa sharaxay marka saameyn weyn igu yeelatay waxyaabihii aan soo arkay sida awoodda oo Israa'iil siday u haysato dhulkaas siday u dhaqmaan ayaga iyo Falastiiniyiinta masjidka ayaa marka saameyn xoog leh igu yeeshay masjid al-Aqsa saameyn caynka ah marka aadan yani masjid al-Aqsa oo masaajidada saddexda salaadaha lagu tukado ay u dhiganto maaragtay kun salaad ay tahay qofka muslimka inuu booqdo aad iyo aad oo ajar badan laga helayo kamid yahay masjid al-Aqsa xaramka iyo masjid al-Haram iyo masjid Madiina iyo masjid maaragtay al-Aqsa marka al-Isra wal-Mi'raj marka waan tegey ma quraacan ma qadayn waxaan arkay masjidkii warbixinadii gudaha iyo masjidkii iyo jacaylkii iyo judbadii oo masjidka aad ii qaaday maqribkii soo dhow waxaan arkay anoo baahi tacbaan la enerjigiiga dhammaaday markaasaan banaanka tegey banaankii markaan tegey waa qiso kale ayadana ma rabno inaan kugu dheerayno waxaan u gudbaynaa inta badan dhaqanka wanaagsan ee saxaafadda saxaafaddii hore iyo saxaafadda maantay waxaan aaminsanahay inuu farqi xoogan u dhexeeyo marka waxaan rabnaa inaan sidee qofka saxafiga isugu miisaami karaa inuu dhexdhexaad noqdo iyo inuu tabiyo xaqiiq saxafiga waxaa laga rabaa horta in akhlaaqda saxaafadda oo dhowro xirfad kasta akhlaaqiyaaday leedahay aad iyo aad saxaafaddu akhlaaqiyaaday leedahay aad iyo aad waxaa ka mid ah runta in la sheego waxaa ka mid ah in aadan eex samaynin waxaa ka mid ah in aad umuuraha aad tabinaysid aad ka ahaatid aragti yacni oo maxayid ah dhexdhexaad ah inaad sida wax u jiraan u tabis ra'yigaaga inaad dadka ugu dhex darin lama ogola waa min akhlaaqi wixii ra'yigaa goonidiisaad u sheegi kartaa laakiin inaad war uga dhigto dadka waxaad jeceshahay iyo waxaad necab tahay war ma noqdaan waa ka mamnuuc akhlaaq ahaan saxaafadda
saxafigu waxyaabaha isku badbaadiyana waxaa ka mid a runta in lagu barto aad iyo aad mar kasta in uu xigasho leeyahay warkiisa mister mawthuuq haa meel cid lagu kalsoon yahay warkan yaa yiri aad iyo aad yaa xaqiijiyey waa inuu keenaa haddii kale meesha laga dhihi jiray Soomaaliya BBC aad tiri warkan haddii uu BBC wax beena ma sheegi sheeri jirin sharciga u yaalay oo ah laba ilwareed oo la hubo in warkan ay xaqiijiyaan ama wariyihii oo isagu xaqiijiyey sida rawaahu al-Bukhari wa Muslim aad iyo aad marka akhlaaqiyadkaas oo dhan la rabaa lama ogola been lama ogola tafsiir qaldan isku dirid lama ogola tusaale ahaan inuu yidhaaho wariyuhu laba beela istiriray oo reebel iyo reebel intaasoo qof ay iska dileen haddana waa la isku hub uruursanayaa inuu soo horiyo colaadii ka waran markuu saas yiraa waa colaad horin waay dagaalka horin waay aad iyo aad laakiin markuu yidhaahdo beelahan deegaankan dagaala ka dhacay saas iyo saasa intaasaa ku dhimatay sababtaas ayaana keentay dagaalka laakiin hadda waan ayaa jirta oo culummadii iyo odayaalkii dhaqanka iyo waxgaradkii ayaa ku dhex jira in la dhammeeyo oo la xakameeyaa la rajayna waa laba war aad iyo aad oo kala duwan mujtamaca waa marka laga hadlayo saxaafadda iyo dhisida nabadda ama badbaadinta way soo galaysaa adiga inaa uga darta maahan oo horisid oo colaadii soo horisid adi nabadoon ma tihid laakiin mas-uuliyadda ku saaran aad iyo aad oo xaqiiqdii inaad sheegtid waay aad iyo aad waayo mujtamac kasta dad nabadda ka shaqeeyaa jooga aad iyo colaadda waa la damiyaa waana laga shaqeeya odayaalka iyo culummada iyo haweenka iyo waxgaradku marnaba ma jeclaa colaadaha marka inaa ayagii soo xigatid waa muhiim meeshaad kuwa sharta wada keliya aad ka xigalahayd ama aad ka xiganaysid su-aal kale haddaan ku daro sidee warbaahintu ama warbaahintii hore ay u saameysay warbaahintan kaloo cusub ama loo yaqaano baraha bulshada way saameysay oo warbaahintii hore ama taqliidiga ahayd sida telefishinada iyo wargeysyada iyo idaacadaha iyo wararka sheegayaan warar suganay u badnaayeen oo la rumaysanayo laakiin tifatir badanay soo mari jireen warar la tifatiray oo loogu talagalay dadka inay dhegeystaan ama daawadaan ama akhristaan ayaa loo tabin jiray oo meelo badan soo maray marka waa soo daahi jiray warku laakiin war lagu kalsoon ahaa war lagu kalsoonyo ahaa hadda saamayntu waxaa weeye marti loogama ahan cidna run iyo beenba wixii dhaca haddiiba waa la sheegaa laakiin mushkiladdu waxay ka taagan tahay see loo rumaysan karaa waa in la xaqiijiyaa oo run cid lagu bartay inay sheegaan dadka baraha bulshada wararka ku tabiya isku mid maahan ayagana qaar baa runta sheegoo lagu yaqaanaa qaar baa maaragtay warar inta badan beena sheega in la daawado keliya raba isku mid maahan marka saameynay leedahay midda kale tifatir ma soo maraan oo qolkiisa wuxuu ku haystaa aaladiisa iyo kaamiradiisa marka horumar dhinac waa horumar aada u fiican in warkii haddiiba la helo oo go-aan lagu gaaro laakiin waa inuu run yahay marna waa khatar oo beentii iyo balaayo ayaa la afuufaa oo khataraa ka dhalan kara marka warbaahintu mar kasta midi laba aflaa waayo dhinac wanaagsan iyo dhinac xunba way leedahay telefishinku markuu soo baxay saasoo kale ahayd adduunka waxaa la dhihi jiray waa xaaraan in la fiirsado way jirto soo ma waa maqasheen laga yaabaa hadda telefishinku xaaraan lama dhahayo social media waa sidoo kale waa aalad kale ayadana waxaa dhacay thawrad oo aan sahlanayn oo xagga tiknolojiyadda ah oo wararka laakiin mar kasta in la xaqiijiyo ayaa loo baahan doonaa marka warbaahintii caadiga ahaydna waa shaqaysaa oo social media ku jirta
middan social media oo cusubna faa'iidadeeda iyo khasaaraheeda ay leedahay. haddii aan sii raacsado waxaa jirta wax la yidhaha almuwaadin asaxafi ama dadka taleefanadooto dhacdo meel ka dhacda dhaqso u duubo laftirkeeda arrintaas ma arrin oo iijaabi aha ku ah saxaafadda ama saxaafadan mucaasarka ah mase waa arrin ku ah yacni togan ama mid oo maya haddii wax wanaagsan waayo warka hadduu run yahay in muwaadin kasta uu soo tabiyo hadduu aaladii haysto uu tabin karo taleefonkii iyo wixii uu dhacdo goobjoog u yahay oo isla markii soo tabiyo oo dadka ay si ay go-aan ugu gaaraan war helaa tala hela soo maa waa wax fiican horumarkay ka mid tahay laakiin hadduu been tabiyo iyo isku dir iyo fidno ka waran waa dhibaato marka waa midi laba aflaa runtii waa arrin loo baahan yahay oo laakiin si taxadar leh ayaa loo baahan yahay runtii ma ahan dadku waxay ahayd inayn dhagahooda maqlin ama indhahooda arkin in loo tabiye ma ahan runtii anshax xumada dhaqan xumada beenta isku dirka waxaasoo dhan waa ka mamnuuc saxaafadda magac kastay leedahay. su-aalaheennii waxaan kusoo gabagabeynaynaa intaas waxaana sharaf inoo ah in aad maantay nala joogto studio sultaan oo aan mataqaanaa gaarsiino intay gaari karto khibraddaada saxaafadeed iyo dardaarankaaga. yuusuf xasan macalin mar kale waan kaaga mahad celinaynaa inaad studio sultaan qayb nagala ahaato podcastigan waxaan rajaynayaa dadka ugu badan inuu gaaro. kusoo dhawaa mar kale qaahira waa waddankaagii ahlan wasahlan. studio sultaan